إلى على الليفر muuqaalkan ayaa baraha bulshada ku baahay maanta taa oo ay in saacadaha qabsaday haddaba muuqaalkana daabade intaanu gudagelin waxaan kaa codsanaya haddii ay tahay markaadii kugu horeysay ee aad inagu soo abirto fadlan saaro pageka like-ka followna dheh saaxiibadana u share dunida ilaahay cid waliba wuxuu u qoray arsaakh qof walibana wuxuu leeyahay waqtiyo u gaara taa oo ay u rumoobaan wax walba u qornayd geeridu waa xaq waxay leedahay waqti guurkana si lamida wuxuu leeyahay waqti balse maanta waxa ina haystaa waxa ay tahay caqabado kala gedisan markaynu ka hadalno xagga technology-ga waxa soo baxay waxyaabo badan oo nolosha iyo waliba reerka saameyntiisuba dhibaato ay ku leedahay gabadha idin muuqata waxa ay maanta baraha bulshadu ay qabsatay iyadoo aad u ilmeynaysa muuqaalana laga soo duubay ka oo lagu baahiyay qaybaha kala duwan ee baraha bulshada gabadhan waxa lagu sababaynayaa in ay sababsatay ama ay sabab u noqotay in gabadha iyo seegeeda ay ku kala tagaan aaladda loo yaqaano TikTok dabcan waa dhaqan Soomaalidu aynaan lahayn in application ama maanta aab lagu soo gudbiyo waxyaabahan shaxdara hase ahaatee dunida ayaa hadba dhan u rogaysa nolosha aadanuhu maanta se waxay gaarsiisan tahay in wax walba lagu baahiyo si walba gabadha seega qaba ayaa wuxuu ku arkay baraha bulshada gaar ahaan aabka loo yaqaano TikTok gabadha oo markaasi waxyaabo aan fiicnayn ku soo balse sida xoguhu ay sheegayaan kadib markii uu sameeyay baaritaan dheer waxa caddaatay seega gabadha qaba inuu ku ogaaday in gabadhu ay tahay xaaskiisa ee sidaa sameynaysa sida lagu baahiyay waxa ay qarsatay wejigeeda balse qaybteeda dambe ay gabadhu ku soo bandhigtay aaladda TikTok iyada oo markaasi hadba dhan isku ruuxaysa balse nasiib darro waxaase ay noqotay gabadha in maantu ay ilanta sida uga qubato sida la xaqiijiyay seega gabadha qaba waxa uu la xiriiray gabadha helkeeda gaar ahaan aabbihii hooyada gabadha dhalay wuxuuna ku wargeliyey in gabadhu xilliga laga bilaabo ay tahay mid uun isagu qabin oo laga qabo kaliya TikTok sidaana ay ku fasaxan tahay maxaa dhacay gabadhii ayaa markii iyadoo aan filayn ka war heshay in saygeedii uu ku dhawaaqay in uu gabadha furay balse ayaan darro maanta sidaa bay u odhaysaa waxaase wax walba yihiin wax qoran laakiin dadaalku waa halkiisii Soomaaliya markaad timaado xaalado kala duwan ay hadba dhalinyartu ay markaa u dhaqmaan laakiin wax waliba waxa ay habboon tahay haddii aadan eebana weji uga helayn aaduhuna aadan weji uga helayn inaad gebigeedaba iska dhaafto guud ahaanba waxaan rajaynayaa daawada inaad ku qasheekadan xiisaha badan fadlan wadaag asxaabtaada mar kalena inoogu soo birmaasani